bishii November 1994 kulan xasaasi ah oo lagu qabtay magaalada Moscow ee dalka Russia ayaa waxa isugu yimid qaar ka mid ah hay'adaha sirdoonada booliiska ee ugu weyn caalamka sida Mareykanka, Jarmalka, Talyaaniga iyo Ruushka. Kulankan wuxuu ahaa mid la isugu abaabulayo ka hortagga qataraha sii balaaranaya ee ururada maafiyada abaabulan ku hayeen dawladaha reer galbeedka. Waxayna qalinka ku duugeen magaca shan kooxood oo u howlgalayay qaab caalami ah isna ay ku tilmaameen kuwa ugu halista badan. Mid ka mid ah kooxahaasi waxay ahayd Meglovich Organization oo saldhigeedu yahay magaalada Budapest caasimada dalka Hungary. Waxa howlgalada guracan ee ururkan Meglovich kamid ahaa ka ganacsiga hubka, maadooyinka nukliyeerka, dumarka jirkooda ku shilin qaata, daroogada iyo mujawharadyada qaaliga ah oo ay u dheeraayeen kala gedinta lacagaha iyo sameynta kuwa faalisada ah. Wuxuuna ururkani ka howlgalayay wadamo tiro badan oo ay ka mid yihiin Czech Republic, Austria, Russia, Ukraine, Ingiriiska, Faransiiska, Slovakia, Mareykanka iyo dhulka Falastiin ay gumeysiga ku hayso Israa'iil. Xilligoodii ugu wacnaa ururkan wuxuu ka koobnaa tiro kor u dhaafaysa 250 xubin oo joogto ah. Waxaana hogaaminayay Semyon Meglovich oo loo garan og yahay Seva ama Boss of the Bosses, booska boosyada. International effort against the Moscow vice mob comes not a moment too soon. Russian mob combines remarkable financial sophistication with bone-crushing brutality. We must work together as nations to overcome these obstacles. Semyon Meglovich wuxuu sanadii 1946 ku dhashay xaafadda Bodil ee caasimadda Kiev oo markaa qayb ka ahayd dalweynihii Soviyetka. Wuxuuna dabyaqadii lixdameeyada ka qalin jibiyay kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda caanka ah Lviv University. Guud ahaan sanadihii ugu horeeyay ee noloshiisa waa kuwa mugdi badan uu ku jiro oo aan laga haynin xogo badan. Waxaase markii ugu horeysay uu maamulkii Sovietka ka warhelay faldambiyadiisan curdanka ahaa sanadihii 70-yada, markaas oo uu ka mid ahaa xubinada ugu madaxa dhaadheer kooxda burcadda ee Lubritskaya oo aad uga howlgali jirtay xaafadaha magaalada Moscow kuna lug lahayd dhaca iyo ka ganacsiga lacagaha counterfeitka ee faalisada ah. Saadarteed maba sii dheereen xilligii uu balaayo luqunta la galay. Wuxuuna muddo gaaban gudaheed 2 jeer oo isu xiga 3 sano iyo 4 sano ah xabsi ku mutaystay dambiyo la xiriira ka ganacsiga lacagahaasi. Balse xilligaasi cidina kuma aanay fakareen heerka uu ninkan gaari doono iyo sida ay dambiyadiisa u sii weynaan doonaan. Meglovich wuxuu malaayiinkiisii ugu horeeyay ka dhufsaday reerihii Yahuudda ee bartameeyadii 80-yada ka cararayay Sovietka una tahriibay dalalka Falastiin iyo Mareykanka isagoo u balan qaadi jiray in uu hantidoodan isugu jirtay guryaha, alaabta, sawirada, farshaxanada iyo wixii la midka ah ay ku lahaayeen dalka Sovietka kaga iibsado lacagaha ay suuqa ka joogaan kadibna uu lacagahoodii ugu wareejinayo bangiyada wadanka ay qaxootiga ka noqon doonaan. Balse taa bedelkeed inta uu isagu alaabtii suuqa geeyo ayuu faa'iidooyinkii iyo xaqii dadka jeebka ku wada shuban jiray. Wuxuuna sanadahan gudahoodii malaayiinkii uu ka faa'iiday ku aasaasay shirkad dhoofisa batroolka Arbat International oo uu ka diiwaangeliyay jasiiradda Alderni oo ka mid ah jasiiradaha loogu wada yeero Channel Islands ee hoostaga boqortooyada Ingiriiska si uu kaga baxsado canshuuraha tirada badan ee laga qaado ganacsiyada magaalooyinka waaweyn ku yaala. Waxaana shirkaddan Arbat kula shiraakoobay gangsterka caanka ahaa ee Vyacheslav Ivankov oo 1992 noqon doona godfatherka ama madaxa ugu sareeya ee madaxyada maafiyooyinkii Raashiyaanka ahaa ee ka jiray gudaha Mareykanka. horaantii 90-yada waxaa dhacay calankii dalweynihii Sovietka taa oo keentay koror aan la qiyaasi karin oo ku yimid urur dambiyeedyadii abaabulnaa oo u wada hanqaltaagayay in ay ka faa'iideystaan fowdadii dalka ka jirtay iyo tabardhicii dawladdii dhexe. Waxaana gudaha magaalada Moscow ka qarxay dagaalo lagu hobtay oo u dhexeeya ururadii burcadda ee ugu xuduud weynaa oo lagu magac daray dagaaladii Ganglands. waxay ahayd xilli rabshado xooggan oo ku suntanaa dilalka dadka caanka ah ee isugu jiray madaxdii burcadda, ganacsato iyo mas'uuliyiin kale. taa oo keentay in Meglovich uu ka cararo magaalada Moscow si la mid ah madaxdii kale ee ugu weynaa ururadii burcadda oo naftoodii la baxsaday. Waxayna isaga iyo gacan-yareyaashiisii ugu sarreeyay degeen maamulka Israa'iil ee dalka Falastiin halka oo ay ka heleen dhalashada Israa'iil maadaama uu asal ahaan ahaa Yahuudi. Balse si la mid ah rag badan oo xilliga ka cararayay Moscow halkan uma iman inuu gabaad ku galo oo keliya. taa cagsigeed wuxuu markiiba ku guuleystay in uu xiriiro saameyn leh aadna u muhiim ah la yeesho qaar ka mid ah siyaasiyiintii iyo sirdoonadii Israa'iiliyiinta ee ugu waaweynaa. balse in uu ka fog yahay qaaradda Yurub meesha uu ku taamayay in uu dhidibada ugu taago boqortooyadiisan cusub ma ahayn wax uu ka raali noqon karay. saadarteed wuxuu markiiba bilaabay in uu baadigoobo waddo uu mar kale uga howlgali karo waddan kale oo Yurubiyan ah.
mana dheereen xilligii uu helay fursaddii u suuragelin lahayd arrinkaasi isagoo ku jira dalxiis yar ayuu wuxuu isha ku dhuftay gabar bedeli doonta habka ay noloshiisa ku socoto Katalin Bab muwaadinad u dhalatay dalyaraha Hungary oo muddo gaaban gudahoodii uu kula aqalgali doono si kasta oo ay ugu muuqatay in guurkan uu ahaa mid degdeg ah ama mid lama filaan ahba ay dadka kale u arkayeen isagoo wuxuu ku fadhiyay oo geeska kaga dhowla cadeynayay in guurkan uu noqon doono midka albaabo hor leh u furi doona muddo gaaban kadibna waxa u suura gashay in uu si sharci ah ugu haajiro magaalada caasimadda Budapest ee dalka Hungary oo dhalashadii dalkaasina helo halka uu ka dhagax dhigi doono asaaska shabakad burcad oo dambiyo caalami ah geysan doonta wuxuu isla markii uu dalkaasi u guurayba uu diiradda saartay ganacsi u suura gelinaya in uu isku hanto faa'iido iyo awoodba wuxuuna iibsaday silsilad baarar caan ah oo lagu caawin jiray oo uu ku taxnaa laga soo bilaabo caasimadda dalka Czech Republic ee Praga ilaa caasimadda dalka Latvia ee Riga oo loo yaqaano kalabyada Black and White dhalaalka muraayadaha iyo nalalka baararkan ee walcanaya waxa isla markiiba ay noqdeen qaar ka mid ah xarumaha ugu caansanaa ee laga helo dumarka quruxda badan ee jirkooda ka ganacsada iyo suuq madow oo si hoose loogu kala ganacsado dhalinta yaryar ee ay gabdhaha u badan yihiin waxaana goobtan kula shiraakoobi doona qaar ka mid ah burcadii dambi ee saameynta badan ku lahaa xilliga reer galbeedka isagoona ka dhigtay base uu howlgaladiisa ku fuliyo intaa kuma ekeene wuxuu kaloo qaabaystay kooxdiisa burcad ee u gaarka ah oo u habeysnaa qaabka ay caanka ku yihiin qoysaska maafiyada ee Mareykanka iyo Talyaaniga qaar badan oo ka mid ah xubnaha burcadiisana ee qiyaas kor u dhaafayay 250 xubin waxa isku haya ma ahayn oo kaliya daacadnimo ee wuxuu la wadaagayay dhiig oo qoys dhow ayuu la ahaa Mikhailovich tani waxay u ahayd oo kaliya bilowga wuxuu ku jiifay in hay'adaha dawladda badan ay il gaar ah ku hayn doonaan burcad badanna ay u gaaran doonto wuxuuna rumaysnaa in labadan waraabe ee u miciyo soo feesanaya uu hal waran oo kaliya ka dhicin karo burcadnimada dhabta ahna aanay ka maarmin dabshid wuxuuna hamigiisii u jeediyey waddo kasii halis badan midda uu hadeer hayay isagoo bilaabay in si sharci ah oo markii ugu horeysay aan burcadnimo iyo wax isdabamarin ah ku jirin ku iibsado shirkado badan oo ka mid ah warshadaha hubka soo saara ee dalka Hungary isagoo adeegsanaya shuraakooyin hor leh iyo shirkad uu madax u yahay oo uu la baxay Aragon wuxuu la wareegay gacan ku haynta qaar ka mid ah shirkadihii hubka ee dalka Hungary sida Magnex 200 soo saarihii birlabta ama magnetka ugu weynaa dalkaasi uu lahaa Dijab General Machine Works oo ahayd soo saaraha madaafiicda hoobiyaasha iyo damdamiyaasha militariga iyo warshada Army Co-op Company oo ka howlgalaysay soo saarista madaafiicda iyo gantaalada lagu duqeeyo diyaaradaha dagaal marka laga soo tago Hungary waxa kaloo shirkadiisan Aragon macaamiisheeda ay ku fideen ilaa dalka Ukraine halka uu kaga macaashi jiray iibinta saliidda iyo ooliyada tareenada ganacsiyadan sharciga ah waxay u ahaayeen wax ka badan il laga raadiyo faa'iido waxay ahaayeen gabaadkiisa kuwa uu isku ilaalinayo balse si la mid ah burcad kasta qabkiisa iyo jeebkiisuba ma qancin malaayiinkan dollar ee uu ka sameynayo ka ganacsiga hubka iyo saliidda oo kaliya marka uu Yurub dhaqankeeda u fiirsadayna waxa u soo baxday fursad kale oo xamaasad gelisay gacantiisa xatooyana uu kala bixi waayay wuxuu arkay sida bulshada Yurub ay ugu sasan tahay sawirada farshaxanka ah dhaymanada iyo mujawharaadka kala duwan mar walbana lacag aan dhamaad lahayn ugu bixiyaan saadarteed horaantii 1993 wuxuu heshiis la galay Sergey Mikhailov ama si fudud loogu naanayso Mikhas booska iyo baabaha weyn ee maafiyada Solnitskaya Bratva ma ahayn burcad maafiya caadi ah waxay ahaayeen burcad ugu cududa sareysa dalka Ruushka walina lagu doodi karo inay yihiin mid kamid ah kuwa ugu awooda badan adduunka oo dhan waxayna kamid ahaayeen maafiyooyinkii aasaasmay dabayaaqadii 80-meeyada balse awoodoodu cirkaasi ay isku shareertay gacantana ku hayay dhaqaale aad u badan oo suuqa madow ah laga soo bilaabo ganacsiga maandooriyaha hubka sharci darrada dhaca bangiyada ilaa xilal waaweyn oo kamid ah dawladda Ruushka waxay ahaayeen rag uu magacooda ku shabadaysan yahay maskaxda hay'adaha dawladda badan waxayna Mikhailovich iyo Don Bratva si wada jir ah u qorsheeyeen in hanti badan ay ku qarash gareeyaan iibsashada qaar ka mid ah shirkadaha iyo dukaanada ka ganacsada dahabka diamondka iyo mujawharaadka kale ee ku yiilay caasimadaha Moscow iyo Budapest dukaamadan ay ku shiraakoobeen waxay u ahaayeen xijaabka lagu qariyo dhaymanada iyo mujawharaadyada ay burcada Bratva ka soo dhacaan bangiyada kaniisadaha ilaa guryaha dadka ee guud ahaan dalalka Yurub muddo aan dheerayn kadibna waxay mar kale go'aansadeen in ay sii balaariyaan howlgaladooda iyagoo iibsaday warshad lagu dayactiro mujawharaadyada ugu qaalisan dunida sida ukumaha caanka ah oo qiimo ahaan gaari kara boqolaal malaayiin xabadii lagu dayactiri jiray dibna suuqa loogu celin jiray waxaana la sheegaa in warshadan ay ahayd meesha ay ku dhici jireen ukumaha dib u habeynta loogu keeno kuwa kale oo macmal faalis ahna ay ugu hagaajin jireen Mikhailovich la shaqaynta raggan ugama dhignayn oo kaliya ganacsi ee waxay u ahayd in uu gaaray darajooyinkii ugu sareeyay ee wax loo yaqaano underground worldiga shabakada qarsoon ee dunida si hoose dambiyadeeda
sideeda ugu fulisa kaliya muddo sanad ah gudaheedna ganacsigiisan mujawharaadyada ee dhaca u badnaa wuxuu u hilaacay sidii biriqdi taa oo u abuurtay hanti xad dhaaf ah una suuragelisay in uu si qiyaas la'aan ah uu laaluush ugu shubo siyaasiyiintii uu hoosta soo gashan karay wuxuuna sidoo kale ugu dambeyn sanadii 1994 u helay ruqsad ganacsi oo heer caalami ah shirkadihiisii hubka soo saari jiray middan oo u suuragelisay in hubkiisii uu u suuq geeyo dhammaan daafaha caalamka isla dabyaqadii sanadaas wuxuu heshiis qarsoodi ah la gaaray gudoonkii madaxda ugu sareeyay maamulka bangiga Incombank Vladimir Vinogradov Incombank oo xilliga ahaa mid kamid ah bangiyada gaarka loo leeyahay ee ugu weynaa dalka Ruushka ayaa u suurageliyay Mogilevich in uu helo bangi uusan ka xabsi qabin in hantidiisan sharci darrada ah ee xadka ka sii baxaysa laga daba imaado ama marka horeba laga war helo iyadoon wax xanibaad ah laga saarinna uu si fudud ugu kala gooshin karo dhammaan daafaha caalamka balse si kasta oo awood iyo hanti uu u urursaday Mogilevich si lamida burcadyadii kale awood iyo hanti oo kaliya kuma ilaalin karin shabakadiisan wuxuuna si weyn ugu tiirsanaa laaluushka qaar kamida ragga ugu saameynta badan hay'adaha kala duwan ee dawladaha uu ka howlgalo siyaasiyiin cayn kasta leh saraakiil boolis iyo kuwa military sharci dejiyaal iyo cid kasta oo miiska hoostiisa uu ugu dhiibi karo doob lacag ah dhammaan lacagahan xad dhaafka ah ee laaluushka uu ku bixinayana waxay u mari dhali doonaan xilliga ugu adag ee uusan filayn in naftiisa ay halis ku jirto sida ay xog ku heshay FBI-da Mareykanka horaantii 1995 Mogilevich ayaa loo dhiibay in uu dhaqo lacag dhan $80 milyan oo uu lahaa Don Michas booska maafiyada Bratva isagoo marinaya mid kamid ah shirkadihiisa balse Michas oo aad uga shakisnaa Mogilevich ayaa ku qancay in uu ka khiyaameeyay lacag dhan $5 milyan oo taa oo keentay in uu aad uga caroodo bishii Febraayo ee sanadaas xafladii dhalashada Don Michas oo ahayd munaasabad heer sare loo diyaariyay ayaa lagu casuumay madaxda iyo ku-xigeenada ururka Bratva sidoo kale madaxda shirkadaha iyo burcada Mogilevich oo ay u dheeraayeen ganacsato kale iyo rag kale oo caan ka ahaa daafaha Yurub waxaa la sheegay in xafladii dhexdeeda uu Don Michas ku furay shirki eedeena kala dul dhacay Mogilevich oo isagu aanba ka warhayn in wixii loo casuumay aynan ahayn mashxarad iyo baashaal xiisadii ayaa kululaatay is-afgaarid iyo hadal dab ah ayaana la isdhaafsaday balse ugu dambeyn si xaaladda aynan faraha uga bixin waxaa la isku afgartay heshiis 3 bilood ah oo loo ogolaaday Mogilevich in uu dib ugu laabto lacagihii kuna soo buuxiyo 5 milyan ee baaqiga ka ahayd balse markii uu dhamaaday muddadii heshiiska wax walbana ay u dhici waayeen sida lagu heshiiyay wax war ahna aan laga helin Mogilevich ayuu Don Michas mar kale dhamaadka bishii May ee sanadaasi xaflad ku agaasimay magaalada Praga ee caasimadda Czech Republic balse markan wuxuu si qarsoodi ah u qorsheeyay in uu khaarijiyo Mogilevich asagoo warba qabin farci sirdoonka ee booliiska dawladda Czech ayaa qaab sir ah uga war helay xafladda fowdada weyn ka qarxi doonto ee caasimadooda lagu qaban rabo maalin iyo laba kadib sarkaal sare oo ka tirsanaa madaxda ugu sareeya booliiska oo kamid ahaa madaxdii lala wadaagay arrinkii oo xiriir qoto dheer adna qiyaasi karto uu kala dhixeeyay Mogilevich ayaa markiiba si hoose ugu digay in uu martiqaadkaasi dabil loo dhigayay hayna u sheegay si uu marna uga soo agdhawaan guud ahaan magaalada Praga Mogilevich oo xanaaq cunaha kala jaray ayaa si argoosi ah maamulkii la soo hadlay ugu gudbiyay diiwaanada faldambiyeedka qaar sare oo kamid ahaa ka soo qaybgalayaashii waaweynaa ee xafladda ay ku balansanaayeen waxaana isla habeenkii xafladii iyo mushxaradii oo meel dhiinta ah marayso kooxda gaarka u tababaran ee booliiskii Czech ay weerar xoogan ku qaadeen maqaayadii ay xafladdu ka socotay iyagoo halkaasi garbaha u wada duubay 200 oo qof oo ku sugnaa xafladda intood badan waxaa subaxii dambe laga masaafuriyay dalka halka ku dhawaad 30 nin lagu xukumay dambiyo isugu jira dhac dil xadgudub iyo wax la mid ah oo lagu heli karay inkastoo mid kamid ah raggii uu laaluushay oo Mogilevich ka badbaadiyay shirqoolkan haddana maadaama dambiyadiisan ay sii weynaanayaan kuma niyadsaneen la macaamilka shakhsiyaad gooni ah iyo in uu si gaar ah ula shooro siyaasiyiinta wuxuu rabay in uu helo miisaan ka culus iyo xiriir aan looga soo agdhawaan karin wuxuuna dabiiqadii isla sanadaas 1995 xiriir sir ah la galay BND hay'adda sirdoonka ee dalka Jarmalka mid kamid ah ururada sirdoon ee ugu saameynta weynaa xilligaasi dunida jiritaanka xiriirkan qarsoon ayaana soo ifbaxay kadib xog sir ah oo loo dusiyay telefishinka qaranka ee Jarmalka ZDF oo ay markii dambe baaritaano ku xaqiijiyeen warbaahinada ugu waaweynaa Yurub oo ay ugu horeysay warbaahinta Biye de Lille oo ahayd warbaahinta Paris ay lahayd biliiska dalka Belgium kuwa uu aad loo ixtiraami jiray baaritaanadooda
muddo kadibna hay-adda sirdoonka ee Jarmalka BND iskama fogeynin wararkaasi taa cagsigeed waxay heshiiskan ku difaaceen in uu yahay kaliya heshiis uu odaygu kula wadaagayo xogaha iyo falalka burcadda ee maafiyada Ruushka si kale hadii loo dhigo sirihii burcadda ayuu raggan u geyn jiray balse Mikhailovich wuxuu heshiiskan u lahaa ujeedo aad uga weyn midaasi wuxuu ka dhignaa in sirdoonka Jarmalka uu si gaar ah uga ilaalinayo cid kasta oo ku daba joogta waxaana markii dambe hay'adaha booliiska dalal badan sida Belgiumka booliiska Jarmalka laftirkiis iyo kuwa dalka Austria ay aad uga cawdeen in baarista Mikhailovich ay noqotay wax ku dhow mid aan suuragal ahayn maadaama isku day kasta ay sameeyaan ay si joogto ah uga carqaladeyso hay'adda sirdoonka ee BND sida uu ku hami weynaana heshiiskan wuxuu noqday gaashaan uu shabakadiisa kaga xijaabiyo cid kasta oo isku dayda in ay juqjuqayso baarto ama lagdo inta uu garab ka haysto sirdoonka Jarmalka hay'ad qashqashaadi karta ama si fudud ugu dhiiran kartaana ma jirin Allore waa sida uu iska dhaadhiciyay hadeer oo isaga iyo howlgaladiisa Yurub ay noqdeen wax ku dhow kuwa lama taabtaan ah wuxuu indhaha saaray dhanka iyo Mareykanka yoolkiisa wuxuu ahaa mid fudud si uu u noqdo kan ugu sareeya jilkiisa waa in uu Mareykanka ku fida wuxuuna markiiba shirkado waaweyn ka aasaasay gudaha Mareykanka shirkadda F&J Trade Management oo xafiiskeedu uu ka furay gobolka Los Angeles shirkadda YBM Magnex oo uu ka taagay gobolka Pennsylvania iyo tobaneeyo kale oo ahaa Shell Companies oo shirkadihiisa waaweyn lacagahooda lagu kala qaybin jiray intaa kadib si howlgallada shirkadahan ay ugu muuqdaan kuwa sharci ah indhaha hay'adaha dawladana aynan soo qaban wuxuu u magacaabay Jacob Bogotin in uu noqdo madaxweynaha iyo maamulaha shirkadiisa weyn ee YBM Magnex balse dhalanteedkiisii ahaa in wax waliba uu gacanta ku hayo ma ahayn mid sii raagi doona balaayooyinkana waxay ugu dhaqnaayeen meel dhow oo uusan ka filanayn mar la sii maraayo bishii shanaad ee 1996 qorshihii iyo dhalanteedkii Mikhailovich dhoodhoobayay ayaa bilaabmay in uu dildilaac galo waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo hay'adda FBI-da ayaa ku kadiyay in ay xanimaan fiisaha dalku gal ee shaqaalihii shirkadiisa YBM kuwa uu ka imaanayay dalalka Ukraine iyo Hungary waxaana ragga laga xanibay fiisaha kamid ahaa Mikhailovich laftirkiisa hay'adaha socdaalka iyo FBI-da ayaa si hoosaad ah magaciisii ugu daray liiska dadka sida gaarka ah loola socdo oo baaritaano joogto ah ay ku wadaan iyaga ahaan cadeemaha isdabaxiimaya ee ay ka heleen ninkan ayaa ahaa kuwa u qalma fiiro gaar ah waxayna u muuqanaysay in uusan ahayn ganacsade caadi ah balse uu yahay burcad ku labisan suud watana qalin bedelkii baastoolada Mikhailovich uma xumaynin ismahdiyay aaminsanna in uu wax kasta xalin karo saadarteed isagoo isticmaalaya xiriiradii uu ku lahaa siyaasadda Israa'iil iyo shabakad dhexdhexaadyaal ah wuxuu cadaadis saaray hay'adda duulimaadyada Mareykanka ilaa ugu dambeyn ay FBI-da si hoose uga qaaday xeeyiraadii fiisaha ee shaqaalihiisa saarnaa marka ay tiisati midna uuba ka sii dhiiranaa wuxuu dhowr bil kadib si qarsoodi ah ku soo galay isagoo adeegsanaya magacyo kale oo been ah sitana fiisaha dalku gal oo si toos ah looga soo diray magaalada Tel Aviv dalka Falastiin ee maamulka Israa'iil ujeedada booqasho ee uu Mareykanka u joogay ayaana ka sii darneedba oo ninkan uma soconin howlo ganacsi ama dalxiis ee wuxuu si gaar ah u booqanayay gangsterkii caanka ahaa ee saaxiibkiisa ahaa Vyacheslav Ivankov godfatherka maafiyooyinkii Ruushyaanka ee Mareykanka ka jiray xilliganna inta gacanta lagu soo dhigay xabsiga federaal ee gobolka New York ku xirnaa iyo sidoo kale Moya Elson hogaamiyihii caanka ahaa ee Moya Brigade mid kamid ah burcadii aadka looga baqi jiray ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka oo si lamid ah Ivankov asna gacanta lagu soo dhigay kadib markii uu ka cararay Mareykanka 1993 laguna soo xiray Talyaaniga isagoo halkaasi ka abaabulayo koox kale oo burcad ah Mikhailovich in uu dal hay'adihiisa sirdoon ay isha ku hayaan magac dhuumaal ah ku soo galo haddana rag burcad ah oo la yaqaano xabsina ku jira uu ku booqdo xabsiyadooda waxay ka dhigneed in xiriirada uu leeyahay aysan ahayn kuwa ciyaar ah in muddo ahna haba iska yaraatay way u shaqeysay qorshihiisa isla sanadii 1996 shirkadiisa YBM waxay ku guuleysatay in ay gasho liiska shirkadaha saamiyadeeda lagu iibiyo suuqa saamiyada ee Toronto dalka Canada iyadoo ay taageero xoog leh siinayaan shirkadaha dilaaliinta saamiyada ee ugu waaweyn sida First Marathon Securities iyo Nesbitt Barnes waxayna markiiba shirkadiisa qiimaha dhaqaalaheeda suuqa u tagay in ka badan nus bilyan oo dollar balse hal goor ayay wax walba kala daadan doonaan arbaaxi fool xunna la dhufan doona Mikhailovich mar la sii maraayo bartamihii 1998 baariyaal ka socda suuqa saamiyada ee Toronto ayaa waxay ka warheleen Mikhailovich iyo madaxa shirkadiisa Jacob Bogotin warqadihii dhaqaalaha shirkadooda ee ay u soo gudbiyeen golihii security iyo exchange-ga ay ahaayeen warqado bug ah si faalis ahna u qiimeeyay dakhliga shirkadooda sidaasna ay Mikhailovich iyo shabakadiisa ku dhaceen in ka badan 150 milyan oo dollar oo ay maalgashadayaal badan oo suuqan isticmaala geliyeen shirkadaasi Mikhailovich wuxuu sidaasi ku sameeyay faa'iido fudud uma baahnayn in ay malaayiin alaab
iibiyaan ama kumanaan macaamiil ah ay u adeegaan dukumentiyo yaryar oo inta laga toosiyey boom 150 milyan oo dollar ayaa gacanta ugu jirtay balse waxa uusan ku xisaabtamin godka bohosha ah ee ay arintan ku ridi doonto maalmo gudahood xukuumadii maaliyadda Canada ayaa xanibtay in shirkadii YBM saamigeeda lagu sii iibiyo suuqa saamiyada ee Toronto 2 maalin oo kadibna howlgal weyn oo ay wada fuliyeen qaar ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn Mareykanka sida FBI-da OCS IRS iyo INS ayaa u dhacay xafiiskoodii ugu weynaa ee ku yeelay gudaha gobolka Pennsylvania waxayna gacanta ku soo dhigeen boqolaal kartoon oo isugu jira dokumentiyo iyo waraaqo sir ah kuwa oo tixraac u noqday kala dhigidda shabakadaha uu Mogilevich ku lahaa wadamada galbeedka laga soo bilaabo galbeedka shishe ee Mareykanka iyo Ingiriiska Jarmalka iyo xudunta Yurub oo lagu keeno dalweynaha Ruushia ilaa iyo maamulka Israel shirkadihiisii tirada badnaa ee ka howlgeli jiray Mareykanka ayaa hal goor albaabada la isugu dhuftay sidoo kale bangigiisii Income Bankna lagu soo rogay xanibaad caalami ah maalin gudaheedna adduunka oo dhan looga xayiray waxaana magaciisii lagu shabadeeyay liiska 10 qof ee loogu doonista badan yahay dunida iyagoo madaxiisii ay dul saareen lacag dhan 5 milyan oo dollar Mogilevich midan waxay u ahayd dabarjab uu muddo dheer iska ilaalinayay mar albaabadii oo dhan laga soo xiray meel kale oo uu dhaqaaqana garan waayay wuxuu u cararay dalka Russia oo uu ogaa in cadowtinimo siyaasadeed ay kala dhaxayso Mareykanka isagoo bilaabay in uu nolol ahaanba isku qariyo balse si kastoo ay tahay burcadu dabiicadoodu ma ahayn in ay taxadaraan wuxuuna ugu dambeyn soo noqday isagoo markan ka dhiiran qaab kasta oo la filanayay sanadii 2002 qareenkiisii Yahuudiga oo muddo 20 sano ah matalayay oo lagu magacaabo Ziv Gordon ayaa si hoosaad ah u aasaasay shirkad loo bixiyay Ural Transgas taa oo hal mar la wareegtay xakamaynta tubooyinka gaaska dabiiciga ah ee u dhaxeeyay wadamada Turkmenistan ilaa iyo dalka Ukraine kor ahaan warqadihii shirkadan waxay u muuqdeen kuwo nadiif ah waxaana milkiyadda shirkadan ku diiwaan galsanaa ganacsadaha iyo hantiilaha caanka ah ee Ukrainianka Dmitry Firtash nin ay dadku muddo dheerba ka sheekeyn jireen sida isaga oo faqiir ah ugu bedelay mid ka mid ah ragga ugu lacagta badan dalka Ukraine muddo aan ka badnayn 10 sano kaliya balse wixii sir la qarqariyaaba mar bay shaaxday waxaana warbaahinada ugu waaweynaa soo gaartay xanta in Dmitry Firtash uu yahay gacanta qarsoon ee Mogilevich u kala wada howlaha Mogilevich ayaa wararkaasi iskaga dheereeyay waraysi uu sanadii 2007 siiyay warbaahinta BBC-da isagoo hadalka ku soo koobay sanadihii ugu dambeeyay oo dhan waxaan ka ganacsanayay qamadiga iyo badarka kale iskaba iloow saliid iyo gaas sida guud ee muuqatay wararkan xanta ah wax weyn uma dhimin balse waxa ugu nabar xuma dhacdada sanad kadib qabsan doonta shirkadiisan qarsoonna kala dhantahali doonta bilowgii 2008 bishii Janaayo ciidamada gaarka u tababaran ee booliiska Ruushka ayaa hal goor laga warhelay iyagoo weerar ku ah xarunta World Trade Center ee magaalada Moscow ugu dambeyn waxay gacanta ku dhigeen nin baxsad ah oo ay ceyrsanayeen muddo 15 sano ah Sergey Schneider ka oo ugu eedeysna malaayiin dollar oo canshuuraad ah oo uu kala dhuntay dawladda Russia balse midda aanay ku baraarugsaneen xilliga ay garbaduubka u xiraayeen ayaa ahaa in ninka ay qabteen uusan ahayn nin iska caadi ah balse uu ahaa gangster qaar ka mid ah dawladihii ugu waaweyn dunida ay ku raajoogeen madaxiisuna uu saarnaa ku dhawaad 5 milyan oo dollar Semyon Mogilevich nin ay dawladaha ugu yeeraan boss of the bosses booska boosyada sida dib laga ogaadayna xilliga gacanta lagu soo dhigayay Mogilevich wuxuu ku dhuumaalaysanayay mid ka mid ah 17 magac ee uu isticmaali jiray Sergey Schneider dunida galbeedka oo dhan ayaa hal goor ka war heshay wararka Mogilevich oo ay sii qadqadinayaan wiilal yaryar oo afka u duuban iyagoo ku haminaya in ugu dambeyn la joogo xilligii uu dhici lahaa calankii lama taabtaanka ahaa sidan raqiista ah miyuu ku bixi doonaa nin ismahdiyay dambiilihii ay dawlado badan indhaha ka qabsanayeen siyaasiyiin badanna ay xabadka u garaacan jireen balse mar kale wuxuu rag badan u cadeeyay in uusan ahayn nin la yareysto kadib hal sano oo muran maxkamadeed iyo isdaba wareeg aan dhamaad lahayn bishii Luulyo 2009 wasaaradda arrimaha gudaha ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday sii deynta Mogilevich iyo in ay mar kale ay xoriyadiisa dib u siisay dawladda sababtuna waxay ku sheegeen dambiyadii lagu hayay ma ahayn wax sida u weyn waana la xidliyay isla markii xabsiga laga sii daayayna waxa shirkadii Ural Transgas ee gaaska dabiiciga ah ka ganacsanaysay lagu bedelay shirkad kale oo laga diiwaan geliyay dalka Switzerland oo magaceedu yahay Ros-Ukraine Energo RUE inkastoo magaceedii la bedelay milkiyadii wax weyn iskama bedelin oo waxa kala qaybsaday isla ganacsadihii Ukrainianka Dmitry Firtash iyo shirkadda gaaska ee dawladda Ruushka ay leedahay Gazprom
dacwad boobsiiskii lagu fasaxay Mogilevich iyo heshiiskan cusub ay xukuumadda Ruushka la gashay isla ninkii lagu eedeynayay inuu Mogilevich u shaqeeyo ayaa dhalisay shaki aad u weyn iyo hadalhayn balaaran oo ka dhalatay in hadalkii wasiirka arrimaha gudaha ee ahaa waa la xaliyay dacwadan ay ka dhigneed in heshiis wadareed oo dawladda la galay uu Mogilevich isku furtay waxaana aragtidaasi horisay kadib markii ra'iisul wasaarihii xilliga ee dalka Ukraine Yulia Tymoshenko fariin sheeko ay la wadaagtay dadka u dhawaa ku qiratay in ay cadeemo buuxo u hayso in shirkaddan cusub ee RUE ay milkiilayaasha ka dambeeyay yihiin burcad maafiyo saameyn weyn ku leh dalka Ruushka iyadoo dabkii uu hadalkaasi holciyay uu waliba babanayo ayaa haddana sanadii 2015 warbaahinta caanka ah ee Telegraph ay shaacisay siro hor leh kadib markii ay gacanta ku dhigeen cajalad laga duubay mid kamid ah saraakiishii hay'adda sirdoonka ee Ruushka KGB Alexander Litvinenko oo ku eedeynaya madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin in uu xiriir qoto dheer la leeyahay Semyon Mogilevich agtiisana uu lama taabtaan ka yahay tan iyo horaantii 1990 taa oo kaliya kuma ekaanine wuxuu sii raaciyay in uu Mogilevich ku lug lahaa hub aad u badan ka iibin jiray ururada Al-Qaacida ee ka dagaalamayay qaybo badan oo wadamada muslimiinta kamid ah sarkaalkan ayaa 2006 lagu dilay sun isagoo howlo shaqo ah u jooga gudaha magaalada London kadib 2 goor oo hore oo uu sun ka badbaaday isagoo ku sugan magaalada Moscow inkastoo tuhunka eedeymaha iyo hay'adaha amni ee ku raajooga ninkan ay buurtaas la egyihiin Semyon Mogilevich waa ninka cidna ay gacanta ku dhigi laadahay sababta ugu weyn ay tahay in mar walba uu hoosta ku sito siyaasiyiin iyo dawlado korka ka ilaashada hadeertan qiyaas waa 79 jir wali si xor ah ayuuna ugu nool yahay magaalada Moscow hay'ad sirdoon ama booliisna aysan ku dhiiran karin in ay halkaasi ka soo ugaarato ama ay gacanta uga soo dhigto taa oo keentay in Mareykanka ay ugu dambeyn ka saarto liiska 10 qof ee loogu doonista badan yahay dunida iyagoo sabab uga dhigay in uu kriteeriyihii liiskaasi looga baahnaa ka baxay